FIFA oo fadeexadii ugu weyneed haddana dhiiqada lagu la gashay mar kale markii ugu horeysay shan garsoore ee hal dal ka soo jeeda walibana ka soo jeeda xulka Argentina ay qaban doonaan ciyaarta Faransiiska iyo Morocco garsoor xumadii xulka Masar iyo Argentina ee arkayay garsooraha inuu waxyaabo badan ka xagliyay sidoo kalena ciyaartii fiicneed ay ciyaareen Masar meeshaas ay ku dhunto sidoo kalena ee Argentina ku soo baxday garsoorahaas ciyaartaas yani qabtay si weyn waxa u muuqatay inuu la jiray xulka Argentina maadaama hal jaal uusan siinin xulkaas oo faawalo badan yani galeen laakiin taas bedelkeeda shan jaalayaal ay wuxuu siiyay xulka Masar الحكم نوفير ريفري نوفير عجيب ay noqotay adduunka dhan ayaa ban FIFA waxay la rabtaa leeyahay inay soo baxdo Argentina maadaama ay difaacayso koobkan ay hor u soo qaaday marka waxa la yaab kale waxay tahay ay ciyaartoydii iyo soo kale tabarihii xulka Masar ay yiraahdeen hambalyo Argentina koobkan idinka ay qaadeen meeshaas waxay ka dhigan tahay marka in garsooruhu iyo sidoo kale FIFA ay rabaan Messi inuu qaado mar kale iyo Argentina koobkan World Cup-ka meel ayaa loo wada ayaa leeyahay xulka la tartamaya marka oo adag waa Faransiiska sababta loogu dhiibay maxay tahay marka garsooraha ka soo wada jeeda kulligood xulka Argentina meeshaas ma Faransa la rabaa in lagu reebo waa cajiib marka committee ku soo qora fikirkiina sida aragtiin ciyaartii Masar iyo sidoo kale garsoorayaashan World Cup-kan sidoo kale ayaa qaadi doona committee nagu soo qora